boqorkii dhalay 1,170 carruur ah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawow daawade kanaalka xangashow muuqaalkayga maanta waxaan kusoo bandhigi doonaa boqorkii dhalay 1,170 carruur ah Ismaaciil ibn Shariif oo loo yaqaanay Mawla ibn Shariif. waxa uu qabiil ahaan ka soo jeeday qabiilka Culuwiyiinta ee dalka Maqrib ama Morocco. waxa uuna noolaa muddo u dhaxaysay 1645 ilaa 1727. waxa uu dhintay isagoo 82 sano jir ah. waxa uuna ka mid ahaa boqoradii soo maray waddanka Maqrib ama Morocco. waxa uu jagada boqornimo ee waddanka Morocco qabtay 16 Arafo 1082 Hijriga oo ku aadan marka laga fiiriyo xilliga miilaadiga 27 Maarso 1672. waxa uu ahaa boqor muslin ah oo dalka Morocco horumar ballaaran ka sameeyay dhanka dhaqaalaha, siyaasadda iyo mideynta shacabka Morocco. waqtiguu xilka boqornimo hayay waxay ahaayeen markii waddanka Morocco uu noqday waddan la tallaabsada caalamka kale. boqorkani waxa uu qabay 4 xaas oo sharci ah, waxaana u shaqayn jiray 500 oo jaariyadood oo isagu leeyahay, adoomana u ahaa qasrigiisana ka shaqayn jiray. marka la isku daro 4 xaas ee sharciga ah iyo 500 oo jaariyadood, waxa uu awooday inuu ka dhalo tiradii ugu badneyd ee abid uu dhalo qof bini'aadan ah oo carruur ah. mid ka mid ah diblomaasiyiinta waddanka Faransiiska ee xilligaasi booqday boqor Ismaaciil Mawlaay waxa uu si cad u sheegay in tirada awlaadda uu dhalay boqor Ismaaciil ay gaarayaan 1,171 carruur. waxa uu intaasi ku daray in tirada intaas la eg ama xaddigaas ah uu ka dhalay 4 xaas oo sharciga ahaa iyo 500 oo jaariyadood. sidoo kale waxaa jira ilawareedyo kale oo sheegaya in carruurta uu dhalay ay gaarayaan 888 carruur ah. arrinta kale ee cajiibka ahi waxay tahay in tirada intaa la eg oo carruurta ah uu ku dhalay muddo gaaraysa 32 sano oo keli ah. markii ay taariikhyahanadu baaritaan ku sameeyeen arrinta suurtagalnimadeeda ayaa waxaa la ogaaday in labadii maalmoodba 3 jeer uu u tegi jiray dumarkiisa. waxaa kale oo la sheegaa in boqorka haatan talada haya ee waddanka Morocco ama Maqrib inuu yahay ama uu ka soo jeedo boqor Ismaaciil ibn Shariif awlaadiisii. fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad na soo booqato, nagu soo biir oo subscribe saar channelka. haddii aad fiidiyowgan waxuun ka faa'iidayna like saar. mahadsanid.